gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole xubnaha nagala jooga garsoorka Galmudug madaxa tababarada dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma qaybaha kale ee abwaaninta ururada bulshada rayidka dadweynaha munaasabada nagala soo qayb galay dhamaantiin waxaan ku salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib طبعا codka gobolada dhexe sanad guuradeedii 8aad ayaa maanta la xusaya 22kii bishii 12aad ee December 2009 ayaa midabada loo taagay oo markii u horeysay laga dhageysto cadaadada deegaanada hoos yimaada ay noqotay marxalado kala duwan ay soo martay dad deegaanka ka soo jeeda ayaa idaacadan soo aasaasay qayb weyn ka qaatay waan uga mahadcelinaynaa iyadoo dabcan markaasi ka mid noqotay deegaanka oo nidaami maamula galayay qaybna ka qaadatay nidaamkaasi nidaamiga agaasimihii ugu horeeyay idaacadda codka gobolada dhexe xilligaas waxa uu noqday Cabdullaahi Balaad oo ka soo noqday idaacadda xilligaasi agaasime muddo ayuu runtii soo maamulayay wariyaal badan ayaa la soo shaqeynayay agaasimihii xigay ayaa isna soo noqday idaacadda Cumar Tijar oo asna agaasimihii labaad idaacadda soo noqday asna muddo soo maamulayay oo uu idaacaddan soo waday dadaal dheerna ku soo bixinayay agaasimihii saddexaad idaacadda isna waxaa soo noqday Cabdullaahi Cumar Gurey oo asna agaasimihii saddexaad soo noqday haddana mudana ka tirsan baarlamaanka Galmudug asna muddo ayuu idaacadda gacanta ku soo hayay oo horumarro ay ku tilaabsanaysay muddada ka dambaysa ayuu qayb ka ahaa agaasimayaashii ku tilaabanayay hadda oo idaacaddu ay joogto 8 sano agaasimo waxaa ka ah Maxamed Maxamuud Aadan oo hadda xilka agaasimahaya inkastoo hadda dabcan uu safar nooga maqan yahay haddana asaga ayaa agaasimaha idaacadda ah idaacaddu waxaa laga dhageystaa FM sidoo kale waxaa laga dhageystaa dhinaca internetka oo live streamka laga dhageysto ilaa iyo 2 website ayaa laga dhageystaa idaacadda gobolada dhexe waxay noqotay idaacadda deegaankan bulshada ku nool u dhageysiga badan yihiin sidoo kale waxay noqotay idaacaddii ugu horeysay ee nidaamka cusub ee deegaanadan ka bilowday wixii ka dambeeyay burburka qayb ka qaadata nidaamkaas dhismaha ama dib u soo kabashada idaacaddu qorshayaal badan ayay hadda wadaa oo muddada soo socota ay rajeynayso in ay qorshayaashaasi hirgalaan muddadii ay shaqeynaysay idaacaddu waxaa ka soo shaqeeyay wariyaal badan qaarkoodna ay xirfado heer sare gaareen haddana ay ka howlgalaan dalka iyo dibaddiisa idaacadda hadda waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 25 wariye 13 wariye oo ka mid ah gudaha xarunta ayay ka howlgalaan halka 12 wariyana banaanka ay ka howlgalaan sida magaalooyinka Boosaaso Gaalkacyo Cabudwaaq Jowhar Beledweyne Baydhabo iyo Muqdisho oo ay ka howlgalaan ilaa iyo wariyaasha kale ee 12 ee soo haray dabcan muddadaasi soo shaqeynaysay marxalado kala duwan ay ku soo shaqeysay 25kaas wariye ee hadda ugu dambeeyda ka howlgala midkood mushaar ma qaato maanta ama $1 cod gobolada dhexe kama qaato taas macnaheedu waxay tahay inaysan idaacaddu dhaqaale soo saarin waxyaabaha ay baahinaysan dhaqaale ku baahin ee ay bulshadan deegaankana qayb ka tahay horseedka horumarineed ee ay ku socdaan tallaabsanayaan